dowladoodii calankoodii hoos jooga 24 saacad ugu dhaca anagoo ka duulaynaan waxaanu tagnay jigjigo degmada xaquuq kuma lihin xafiis kuma lihin cidna turjunta kuma lihin gobolka kuma lihin waxaanu tagnay jigjigo anagoo cabanayna oo u sheegayna dadkaas xaquuq inay helaan wax qaabilaad ay wax sharciya oo helay ma jirto waxa la taga degmada yaa noo joog waa meeshii yani dhibka ka dhacay waxaana loo soo diray dawladii baa idin imaanaysa guray baa loo soo diray wuxuu yiri gaariyaal tiknika oo Soomaaliya oo anaga meesha hadda aan joogno 100 kilomitir noo jirta haddaad rabtaan xaquuq inaad heshaan la kaaleen waanu ka cabanay annagu dad baan shacaba dad Itoobiyaan nahay xuduudda dawlad baa u xil saaran federaal baa joog dawlad deegaan baa joog dadka halka jooga dawladdu hala xisaabtato haday qalad kay galeen anaga naga galeen dawladda naga ka galeen shacabka ka galeen dadkii adii Ilaahay ku dhibku taabanaya baan ka mid waxa la amar dawlad weeye waxaad doontaan baabuurta khaalad meesha la yiraahdo balanba hadda dawlad maana la diriiray waa yahay baan dhig waxaanu codsanaynay inaanu dawladda xaquuq ka helo iyo wax la yiraahdo hadii Ilaahay ku soo cadaalad dadka walaalaha ayaa deegaanka iyaga ahna nabadgelyo aan ka helo labadana calanka hoostiisa joognaa ilaa hadda dadka intaas oo sano isleeyahay cid tiraahdo maxay isku leynayaan war maxaad u baahan tihiin ma dhacin dawladdu uma soo dirin marka koobaad waxaan sheegaynaa oo aan cadeynaynaa haddaanu nahay dadka shacabka oo deegaanka degan odayaashii deegaankan dadka matali jiray inta shir loo qabtay oo ciidamadu shir u qabteen ayaa xabsi lagu guray cadaalad ma helin maxkamad ma helin xukun ma helin hal sanay marayaan imanka waxay maraysaa qof wax garanaya oo dadka wax laga weydiin kara inuu sa iimaan karin meel shaarica meel deegaan ah oo dadka wax oran karo waxaa timid cid wax la dhahaaba inaysan jirin war dawladda Itoobiya dawlad deegaanku ma gurayba ka bilowmaa oo ka dhamaada guray waan ka cabanaynaa kamana baqayno waxaan u baahanahay dad dawladda ka turjumi kara oo cadaalad ka noqon kara oo dhaxdhaxaad ka noqon kara inaan helaan u baahanahay waxaan sheegaynaa anagu baabuur balanbal kama keeni karno awood uma lihin dad Itoobiyaan oo masaakiin oo abaaraysan baan nahay oo dawladda deegaanka ku nool oo waliba xaquuq la'aan ah